وصوصارستي كوحدة ولا لها أديس باس أديس أبابا إيتوبيا وصوصارستي كوحدة ولا لها أديس باس أديس أبابا إيتوبيا عندنا هيستا يسوق مركز فن الرصدة صالح عرب مركز يدن كاجي بتشوكتا إذا كنا وحتيهين ولا لها أديس مجالات أديس أبابا أي مركز فنكيننا وكتشرة إذا كجار مع الأساس كوح للناس محيسة ككوبنت وكوح النوعية يدنا وشقيس بسم الله الرحمن الرحيم أرتمرك ورحمة السلام عليكم معاه يبهذا هون كيبل تي في لما شعبك reer Somaliland meel kasta joogan iyo taageerayaasheeda meel walba caalamka joogan runtii nimcay su'aashaas waa su'aal qurux badan waxaan aasaasnay kooxdan 2006 waxay ka kooban tahay fanaaniin dhowr badan isku jira haday noqoto jilayaal haday noqoto musician iyo haday noqoto dansiba intaas ka kooban tahay waan gartay magaalada saani markaasi ka jirta qaabka u shaqeysa waxaan maqlay marka bandhigyo ma hubayna qabataan laakiin hoteelada kale waa koox ka shidan oo habeenkii tunta rumaantii wallahi siyaabo badan baan u shaqeynaa waxaan nahay kooxda kaliya ee ka jirta caasimadda Itoobiya Addis Ababa waan gartay waxa jirta meel xarun anagu aan leenahay oo jimco walba aan ka tunno sax waxaan kaloo qabanaa maalmooyinka yani munaasabadaha adduunkooda iyo ciidaha aan tunno iyo sidoo kale fanaaniinteena soo casuuno ku soo dhaweeyna magaalada markaasaan u shaqeynaa magaaladan Hargeysa joogtaan wada jir idinkoo walaalihii Itoobiya ayaad bandhig faneed markaasi reer Hargeysa ka codsadeen aad u qabanaysaan halku ka dhacay iyo wali ma la isla qorsheeyay iyo waqtiga si aan ugu sii sheegno taageerayaashiina horto rumaantii maanta fursadan maanta aad nasiisin macay wad ku mahadsan tahay marka waad Ilaahay baa mahad leh marka labaadna aadaan ku siilnahay because adigu ah hooyadii fanka rumaantii Hargeysa si wanaagsan baan lagu soo dhaweeyay anagoo ah walaalaha Diis iyo walaalaha Dirraba markaan isku geeyna walaalaha Itoobiya iraado runtii dhalinyar badan baa aad noogu soo dhaweysay iyo shacabka reer Somaliland iyo fanaaniinteeduba insha Allah waxaan rajay doonaa 26 June inaan ku qabanno show qurux badan oo inagu wehelin doonaan fanaaniin reer UK ah iyo kuwa magaalada Hargeysa goobtuna waxay noqon doontaa insha Allah Crown Hotel haddii Ilaahay iraado runtii kooxdeedu waxay ka kooban tahay haddaan qaybta kooxda kugu soo noqdo fanaaniinteeda yani qaari waxay joogaan Muqdisho qaari Mareykanka qaari Ingiriiska qaari tartankay ku jireen ruuxantii walaalaha Diis marka la iraado ani Cabdirasaaq oo walaala ah naguma bixin magacaasi waqtiga magacan la sameeyay anu fanaan ma ahayn waan gartay oo Cabdirasaaq iyo Bonus fanaanka weena Bonus iyo fanaanin kale ayaa dhisay mar dambe ayaan anu la soo qabsaday kooxda intii karaankaygana soo waday imika insha Allah inaan sii wadaan jeclahay laakiin walaalaha Diis meel walba joogaan dunida daafaheeda asxaabteeda Shacib Roy oo jooga Ingiriiska noo qaabilsan Xuseen Bakar oo isaguna Xamar noo qaabilsan saaxiibkay Daadis oo isaguna imika shaqada sii waday iskariid la jir aad ayaan u salaam doonaa Tubacyar oo isaguna tartanka noogu jira hadda insha Allah waxaan u rajayn doonaa guul inuu guuleysto waxaan leeyahay walaalaha Diis meel walba joogaan ha noolaadaan aad baa mahadsantiin waa kaasi isagu waa warbixintii kooxda adiguna markan